Wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland oo gadoodsan ay xirteen wadada gasha wasaaradaha iyo xarunta madaxtooyada ee Garowe. Ciidamadan oo ay ku jiraan kuwa ilaaliya madaxtooyada isla markaana wata hubka noocyadiisa kala duwan ayaa sheegay in ay ka gadoodsan yihiin mushaar la'aan iyaga oo xukuumadda ka dalbaday in ay xuquuqdooda helaan. Ciidamada ayaa sidoo kale isku fidiyay wadooyinka wasaaradaha gala iyaga oo dib u celinaya shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta wasaaradaha oo shaqo ku wajahan, waxaana taasi ka dhalatay caqabad shaqo. Shalay ay ahayd markii sidan oo kale ciidamo ka gadoodsan mushaar la'aan ay xirteen wadooyinka gala dekedda magaalada Boosaaso, waxaana tallaabooyinkan ay ku soo aadayaan xilli deegaanada Puntland laga qabtay doorashooyin qof iyo cod ah. Ma doonaysaa inaad hesho macluumaadka safarada gudaha iyo dibadda? Ma baadigoobaysay shirkad ka haqabtirta baahidaada dhanka safarka? Ma qorsheynaysay fiiso, diyaarad iyo weliba adeeg dhammaystiran oo socdaalka dibadda ah? Haddaba haddii jawaabtaadu tahay haa, bal daawo muuqaalkan oo waa ku muhiim. Som Easy Travel and Cargo Agency waxay ka caawinaysaa dhammaan baahiyaha la xiriira safarada sida 1. tikidhada gudaha iyo dibadda, ticket local and international. 2. dalbidda fiisayaasha waxbarashada, caafimaadka iyo dalxiiska. dalalka ay Som Easy fiisooyinka idinkaga helayso waxaa ka mid ah Kenya, Uganda, Turkiya, India iyo Bangladesh. Sidoo kale waxay idin qabanaysaa shirkadda Som Easy Travel and Cargo Agency adeegyada kala ah cargo, hotel booking, airport drop and pick up. Som Easy Travel and Cargo Agency waxa kale oo aad ka helaysaan duulimaadyada dhammaan gobolada dalka. Shirkaddu waxay u ballan qaadaysaa macaamiisheeda adeeg hufan oo dhammaystiran. Haddaba wixii faahfaahin intaasi dheeraad ah waxaad kala xiriiri kartaan telefoon nambarada shaashada idinkaga muuqda.